mudane madaxweyne sharaf iyo karaame noo tahay inaad waqtigaaga noo hurto isla markaana aan VOA ka aqbasho waraysigan aan marka hore ku bilaabo waxaa jira xaaladaha mandaqada ta Afrika ta adduunka iyo tugaaro Somaliland siyaasadeeda arrimaha gudaha ah aan ku horeyna siyaasadda arrimaha gudaha muddo 40 maalmood aan dhameyn baad xafiiska joogtaa 120 ama 100 maalmood horena qorshe ayaa yaali ilaa imka maxaa ku qabsoon horta waa muddo yar laakiin waxyaalo badan baa qarsoomay yaa noo qabsoomay hawluhu markaad hawlgelaysa waxay u baahan tahay qorshe iyo vision kuwaas manifestadii iyo markii dadka aanu dee kaambinka bilaabaynay baan kusoo talagalno waa jira waxay soo baahan tahay marka ay wuxuu marka hore aragti tahay qorshaha tira halkaan soo qaban marka dambe waxaad moodaa stage-kii loo rogayay fulinta stage-ka fulintu xaaladda uu ku soo beegmana daraasad gaaro labaad buu baahay dhaqaale environmentka siyaasadda abuurmay xaalad kala abuurmi karta aad ku tala gashaan ahayn dhibaatooyin kala iman kara marka horta wixii qorshayaal ahaa in wax ku fulin waan dhammaynay mashaariicdii aanu ka dhiganay mudnaanta koowaadna badankoodu waan wada bilownay marka xaaladdeeda bilow wanaagsan bay ku socotaa dadka qaar baa markaad magacooday golaha wasiirada dareen celintay soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen wasaarada badan oo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya sidee qofku aqoontiisa iyo adsula meel dhigtay iyo shaqada uu qabanayo waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saaro waxa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban kara qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waa aragnimo aqoon oo dhalasho taanad way fulin karaan cadaaladda oo kale cadaaladda waxay noo hayeen chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeeraryaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaaneed leh cadaaladdu waa meel maamul iyo hogaamineed marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxay la tahay wasaaradda cadaaladdu maamul bay qabataa adeeg bay u qabataa maxkamadda garsoorka laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahanya waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeeraarinta guud marka waxay la tahay waa ku habooy ciddii loo magacaabay weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn ma laga yaabaa in 100 maalmood ay dhammaadaan adigoon weli soo dhammaystirin xukuumaddeedu waa dhammaystirantay golihii wasiiradu waa dheyi waxa kale waa shaqaale waxaa hadhay waa shaqaale shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso hadday meel banaanato ama qof shaqada qaban waayo in baa la bedelaya hawsha lala dheeray marka ma arka xukuumadda waxaa leeyahay xukuumaddii waana dhammaystirin yaa la doonaya in la magacaabo markaas meeshu waa shaqaale waa civil servant maarayaashu waa civil servant ambassadors waa la mid marka waxay u baahan tahay in la derso oo ciddii xilka haysa cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daayay male marka ra'yiga kuma raacsanay xukuumaddii ma dhammaystirin xukuumaddii 2 maalmood gudood baan ku dhammaystiray oonu soo dejinay wasaaradii oo dhan waana la ansixiyey baarlamaankana wuu ka dhammaaday hawshana waa socota sunnaha xukuumadii ka horeeyay baa wuxuu ahaa in agaasimayaasha saad sheegtay walow shaqaaliin la magacaabo mar la wada raaciyo dadka qaar baa weli habeenkii seexda iyagoo xil haya subaxiina soo kaca iyagoo isla xilkii ma laga qaaday micnaheedu waxa weeyaan cidaanad weli wasaaradahoodii ugu tagin eena taaban ama shaqaale hoosaadaadan ama agaasimayaal hadaane sidoodaas xilka u haynaya ha dowladnimada waxana waa political post waa la doortaa madaxweyne ku xigmar doorasho xukuumad baa laga rabaa xukuumaddu waa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada caalamka oo dhan agaasimayaal ambassadors generals oo awoodaha madaxweynuhu saxo waxa weeye laf dhabarta maamulka administration iyaga hawsha socodsiiya wasiirka la keeno ha bedelmo waa inaanu xafiiskaasi dhaqaaqin oo faylkiisu yaalla oo la shaqeeya marka kuwaasi kuma xidhna inay la wareegaan doorashooyinka haddii kale meeshu waa la saadey shaqada dowladda wala marka waxaan u aragnaa in sharcigaasi uu yahay ka sax la raacayo marka wixii xil haya agaasime maareeye channel ambassador waa hawl joogta oo ninkii hayay
qof hawshiisa loo garan waayo mooyaane qofka xilka uu haynaya maha political post. aynu nimaadno arrimaha xisbiyada xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumaddaada cusub wadan iyo ucid wada shaqayntiina waa sidee horta in yar baanu joognay xisbiga wadani halkan aanu isku arnay xafiiska igan guddoomiyaha xisbigaas si wanaagsan waanu kala tagnay waananu sugaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaanu kulanno faysal isaga dhowr jeer baanu kulannay oo shaqaynay waxayna tahay xisbiyada mucaaradkii xaq dastuuriya leeyihin iyo mid siyaasi ah qadarin iyo ixtiraam bay naga mudan yihiin diyaar baanu la shaqaynay waananu soo dhaweynaynaa insha allahu dee in yar baanu joognay muddada soo socotana waanu wada shaqayn doonaa oo danta qaranka nagu qasbaysa inaanu heshiino annagana mas-uuliyad weyn baanu saaran inaanu ixtiraamkooda u dhamayno iyo wada shaqayntooda taana diyaar baanuna way waxaa jira doorashadii somalilan ka dhacday dadku sibay ugu kala aragti duwanaadeen meelaha qaar bay gaadhay in qaybsanaan bulsho dhacdo marar badanoo hadashay adiguna wada carabaabtay jiritaanka hawshaasi sidee loo dhayayaabay kula tahay xanafta doorashada iyo mideyntii dadka marka dambe siyaasadda ku kala aragti duwanaa waxaa la idhahaa dimuqraadiyaddu shar iyo khayr bay leedahay kala qaybsanaanta iyo xanafta dimuqraadiyadda leh waana jiraysaa xikmaddu waxa weeye marka wax la tartamayana waa la isqarduufaynaya mar hadday dhamaatana waa la iska canqadaa meel baa la wada jeedsaa dee waa inu labadaa sharci bay fulina haddii kala jiri mayno tartanna waa waajib oo dimuqraadiyaddiiba ah markaa la tartamaya jiirjiirka iyo tartanka iyo isriixu waa badanya ila kubadda wad aragta waxaa dhidi ka dhacay ragge mar hadday dhamaatana dee dalka iyo qarankaa meel wada jeedayaa markaa kala qaybsanaan kale may jirin waa tii tartanka tiina way dhammaatay annagoo xilka haynaana waanu ku dadaalaynaa intii kartida inaanu xaraftaa dhammayno mucaaradkana insha allahu iyaguna sidaas si leegun bay mas-uuliyaddu saaranta way dhammayn doonaan markaa wixii waxaa la yidhahdaa raadayntii tartanku iska dhammaan doona saddex tiir baa dowladda somalilan ka koobanto xerdejintii iyo fulintii iyo garsoorkii annagana la dirsadaba dhowr jeer ku celisa waxaa jira dad aan ahayn dadkaa tilmaantay oo madax dhaqameed leh oo ganacsato leh oo dadka kale bulshada leh oo ka hadla arrimo taabanaya ama amni ha noqoto ama wadajir ha noqoto ama sidoo kale siyaasad lafteedaba ka hadla adu mowqif nooc baad ka taagantay arrintaas salaadiinta siyaasadda ka hadasha iyo dadka sidaad adigu u dhigtay loo dooran ee ka hadla arrimahaas horta dhaqankeenu bulshada soo nooshahay saynu dhisannahay waa si qabaliya xisbiyaduna waxaa rabaa in dadka qabyaalada ka saaraan oo xisbi laysku tago xisbigaas mabdiga ku shaqeeyo marka inagu taasinu adeegina inuu dadku xisbiyada ku biro markaa xisbiya loo wada hadlo oo siyaasadda loo maamulo dhaqan kale aynu leenahay mujtamaceenu wuxuu qaybsan yahay dabaqado masalan culimada waa awood madax dhaqameedku waa awood ganacsatadu waa awood bulshada rayidka ah oo aqoon-yahanka iyo guruubo ismaystana waa awood saxaafaddu waa awood horta hogaamintu waa ina intaasoo dhan danahooda la midaaya la hogaamiya qof wal oo intaa ka mid ah markay siyaasadda xisbi unbu ku abtirsada cid kale food ma qaado cid kale madaxweyne ma bedesho cid kale siyaasadda qaranka ma jeexdo xisbiyaa jeexa markaa dadkaa faraha badan ee noocaasi xisbiyay ku wada abtirsadaa qofkii aan xisbiyaa midna ahayn waxaanu ka qeyb gelin horumarintii iyo maamulka dalka uu kala noqday waajibaad sharcigu saaray oo dalkiisa ku leeyahay inuu tabar ka qaato ayuu ka baxay marka waxaana ka soo waxaa dhab ah inay dadku u qaybsayen saddexdaa xisbi ay u kala codeeyeen markaa markay noqoto siyaasadda guuda dalka waa inay saddexda xisbi dee maamulkeeda leeyihin oo loo daaya adigu saxaafiyiintu waxay ilaaliyaan danta qaranka ciddii haysaba waxaasaa qaldan warkaasaa soo baxay dadka ay isu gudbiyaan dee anu xilkaa ma qaban karo aniga lama inaan war isu gudbiyo aniga waxa lagu yidhaha danta guud ee dalka isu soo duwo oo dad kala maanahoo kala wada fikra duwan inaan mideeyo boqol mudac inaan maxaar ka dhigaa laga raba marka ninka baacmishirka ah isagoo halkiisaa dee awoodsiga karaamisa ku leh ninka sheekha isagoo halkiisaa ku sharfan madax dhaqameedka waxaa loo bahay qofku markuu hadlaayo danta qaran ka hadlaayo dee isaga mas-uuliyata inuu dadka wanaagu sheego haddii kale aanu balaayo sheegin dee markaa waxaan ku tali lahaa qof kasta oo soo taagaya miidiya dee wax ifkiisa iyo aakhirada usan dadkana wanaagu aynu ka hadlo weliba dadka dee taytalada leh ee dadku ixtiraamaan
dadku eegayaan ay ka filayaan magacu doonaya sitee wanaag waxa weeye inuu dadka wax wanaagsan sheego fi akhriyada hadduu ka bayro oo balaayo sheego horta isagaa qaldamay isagaana u taalla mujtamacu dee wuu qiimeynaya aniguse waxaan ku talinayaa dadka waaweyn markay hadlayaan inay dadkana soo dhaweeyaan turxaantana ka ilaaliyaan dadkana jihada wanaagsan fi akhra u sheegaan waxaa jira sixir barar aada adiguna ka hadashay sixir bararkaasi meelo badan iyo nolosha siyaabo badan buu u taabtay abaaraa iyaguna iminka foolaadkoodii iyo hordhacoodii gobolada qaar raadadkoodu ka muuqdaan arrintaasi ka xukuumad ahaan sidee wajahaysaan waxaan wajahaynaa sixir barar kugu jira waanu soo jiitamay qaran baynu nahay 3 meelood buu saameynaya ta u horeysa dadka ganacsada ah sixirku khasaar ku keenay qofka caadiga ah ee shicibkaana faqri iyo gaajo u keenay dowladdana wuxuu u keenayaa dhaqaale darri aanay ku qaban karin adeegga bulshada loo qabanayay mar hadduu ina wada saameynayo waxaynu u baahanay inaynu marka hore isla xaqiijino sixir bararka waxaa ka socda iyo maxaanu ku daweynaa taa taladeenu ku jiraa ciddii akhrisana waa lagu wadaa runtii waa nuga raagay waa nagu tafdheeraaday laakiin hawshaa tafdheeridaa leh waxaanu keeni doonaa weyga soo socda wixii aynala noqotay inagoo dhinac walba la soo tashanay inagoo isku aragtiya oo si aynu u badbaadnaa ka ah aynu u badbaadnaa shirinkeenna ayaynu tala soo saari doonaa laakiin fafaalaha soo baxaya waxa weeye 3 qodob baa nahay oo inaynu runta isaga sheegnaa waa ka koowaad waxaanu nahay dal aan waxba soo saarin ee wax loo dibadda keensada mar haddaynu dibadda wax ka soo eegsanay ilaa dacas ilaa tamaanada haddaynu soo iibsanayno waxay nooga maanta inay dollar ku soo iibsano dollarkana inaguma sameynee waa inaynu adduunka wax ka iibinaa si aynu dollar u helno xoolaha quraynu iibin jiray waa 1 keli xoolo qura meel kale wax kale u dhoofin xoolihii laba isku darsamay abaarihii oo tiradooda yareeyey iyo sacuudigii loo dhoofin jiray waa albaabka naga xidhay markaa dakhli lacag adagi inama soo gasho waxayna soo gasho oo waxa yara ka yimaadaa dadka dibadda jooga reerahooda ay soo diraan doolarkii aynu soo galayna waxaanu ka dhignay faakaysi inaan ku cunno faakaysi waa maxay lacagtii intayna soo gasho waxa ku baxdaa qaadka qaadku waa faakaysi marka waxa wey 3 dhibaataa jira inagoo wax soo saar lahayn inagoo wax loo dibadda ka soo gadanayna inagoo xoolihii aynu keli jirna wax ay xidhan yihiin inagoo doolarka yar ay naga soo galaan diaspora dadkeena dibadda jooga waxay reer u soo diraan ee lacag ahaan soo galayna wax muhiima ku gadan lahayna faakays ku gadana marka qof waliba wuxuu u baahan in la dirso oo horta naftiisa ka bilaabana wax sax faakays gaanu yarayno inuu dhexda xidhano abaaro way soo bateena inaynu saan u noolaana isu weydiino oo aynu ogaanina hawl lagu soo kordhay annagu qorshahaasaan ku jiraa waana la isugu tegey business iyo aqoon-yahan iyo xukuumaddii insha allahu maalmada soo socdaanu keeni doonaa xal wixii ay nala noqoto in badan intii ololahaad ku jirtay waxaad ku ololeynayseen in sarreynta sharcigu tahay waxaa idinka idin meel yaalla halkudhigiina wuxuu ahaa berri maanta ka fiican waxaad in badan carabaabtay in la dagaalanka musuqmaasuqu yahay mid ka mid a tiirarka xukuumaddaada saldhigga u noqon doono haddiiba ay dhacdo in xukuumaddaada xubno ka mid ahay lagu helo caddayn ah amaba ay raadkeeda ka muuqato musuqmaasuq maxaa kaaga meel yahay dee ballan baa marka qaaday balka hortiisa imse goran ka hadda arrintaa tee waxay waajiba inaan furiyo wuxuu sharcigu cidda faraayo marka niyad ahaanna waa aaminsanahay go-aan ahaanna waan qaba ummaddana in badan baan taa kula hadla marka waxaa dhammaanteen in lagu wada waajiba inaad hawshaa layla fuliyo hadday arrinta aad musqaad samaysoon anigu huraa wada qaldamay oo intii taqaanamay hadii inaan kuwa kale way qaldan jiraa in hala daayo barkhad dee mushkilad bay noqonaysaa marka waan horta qaraan si faaran loo dagaalano waxaas inuu xun yahay musuqu xar yahay dowlad musuq ku dhaqanta ay dunto dowladaha horumaray ay musuq iska celiyeen waxaana tahay inaynu taa wada go-aansano idinkuna qof iyo saxaafad iyo qolada haddii aan yara wakiil tiraadan habaqanin la socdo wanagii balanta lahayne ku calooday oo dee layla garab galo lakin haddii ummaddu markaa soo horjeedsato kiis kala muqaarida lagu qaaday waxa dadku ummaddu waxay diiday ka daa ardee waataynu ku heshinayno baalka la dagaalane iminkana waxaad moodaa dadka badankiisu inaan neceb yihin in qofna la taabto musuq ahla daani waa la leeyahy
markaa dee xoog badan baan mahano garab gala oo aniga laftooda haddaan dee yar baqday riixa dhowryaa hadda baqaysaa waa ballantaanu galnay madaxweyne arrin waxaa jira xeer nidaamyaad soo saartay xagga sharciga markaynu eegno sidoo kale xeerar baa jira baarlamaanku ansixiyo oon la fulinin ka saxaafadda ka mida ku dhowaan la ansixiyo baa jiro booliska ah oo xeerka booliska ah in badan sharci yaqaanada iyo dadka arrimaha danayaana baaqiya kuugu soo jeediyeen in la fuliyo maxaa hortaagan fulinta xeerarka waxayna tahay xeerarka wixii baarlamaanku uu baaskareeyay way fulayaan waana lagu dhaqmaya waayo meel madow socon kari mayno kolba xeerkii laynoo ansixiyo aynu ku dhaqmanaa marka wixii xeerar la ansixiyo waa lagu dhaqmaya waxa qabyada ah dadka danaynaya ee baarlamaanka dhexdiisa isku haysta ee weli aan dhan isugu laga duwan inay hore u dhameeyeen balaqaatay saxaafadda ka mid ah wixii kala sharciyaala ka mid ah laakiin bishaan joognay xeerar badan baan sii diin xeerar badan bay baarlamaanka sii daayay waana ka codsanay dhaqaaqaan waana ku mahadsan xeerarkana waa sii daynayna haddii xeer wax ka qaldamaan amendment dib baa baarlamaanka loo weydiin karaa halkaa waqalada ka soo waxyaa la soco markaa waan qabaa xeerarka inaynu sooda ugu dhaqanno annaga xukuumad ahaana dee waa naga go-aan xukuumaddu xeer ma jebin karto fulinteeda maxaa hortaagan tusaalanka booliska oo kale fulinteeda sida loogu dhaqmaa dee waa la fuliyaa xeer jiro oo fulintiisa la diiday ama laga maagmaago laga barbaray dee ma garanayaan uma tusaalahanka booliska ka mida ka saxaafadda ka mida waxaa la soo daayay ka booliska waa waxaan leeyahay waa 20 cisho 20 cisho hor baa saxay dee si isku fulaya ka saxaafadda kii horaa lagu dhaqmaya haddii ku dambe loo baahdana marka kaa dambe lasoo saaraa lagu dhaqmaya wixii xeer dee muran male da waxaan ku dhisanahay xataa hadduu xeerka adigoo aad diidan tahay inaad amendment oo dib u saxda mooyaane kolba kaa yaala ayin baa lagu dhaqmaya marka waa la fuliyaa dee anagu xukuumad ahaan mid aanan fulinin ma jiro ama mid aan muran ka keenin aad iyo aad baad mahadsantay mudane madaxweyne aynu tagno xaggan iyo bariga tukaraq hawl baa ka taagan ciidanka somalilan hore u socday xagga soomaaliya iyo maamul goboleedka puntlandna waxaa la leeyahay dhul aan leenahayba muran siyaasadeed iyo xuduudeed baa ka taagan arrintaasi maxay tahay halkaa ka taagan tihi idinku muran xuduudeed kama taagna ku siyaasadeedna kama taagna waa gardarro qaawan oo soomaalida lagu soo qaaday somaliland xadkeedii waxay u jirtaa 70 kilomitir baa noo haray qaran dhisan oo hore u dhistay wixiisa sharciga caalamka iyo afrika dhaqantana waa ogolayahado afrika oo dhan waxay noo heshiisa wixii xeerkii kumistuurka tagaa lagu dhaqmo 70 kilomitir gudahooda ayaa laynagu soo duulayaa oo ciidan laynoo aabulayaa oona loogu yeeraya nama qabataan lahay anagu nabad baanu doonayna wixii khilaafana wada hadal baan ku dhamayna naga dhexeeya soomaaliya siriya caad baa u sheegay haddii lagu soo duulana waxbaan iska celinayna markaa muran siyaasadeed ma jira midna dhuma jirta waa bareen caddaana oo lagu soo duula somaliland xiisaddu way taagan tahay ma ka wada hadasheen madaxweynaha soomaaliya arrintaasi sida loo wajahayo waayo haddii midi ku taag noqoto dagaal inuu dhaco waa macquul markaas maxaa idinka meel yaalla horta dagaalka annagu waa war sheegaynaa waxaanu leenahay war annagu dagaal idinma soo socono oo xadkeeni uma dhowin oo dagaal ma rabno haddaa waxaan tirsanasana waa hadal hadduu se dee kudan waaye iyaga la noqoto sidana imika ay wadaan ee abaabulka durbaanka ee mararka qaar qabiila ku saabsan ee ka kacad lahayo dee haddii ay la noqoto inay ilow na soo weeraraan waa isdifaacayna diin iyo sharciba in isdaafacdana waa sharci weeye laakiin annagu uma soconno maanta dagaal uma baahnin soomaaliya somaliland mid loo dhibaatay in filan baa hoos taala dagaalo badan baan ka soo baxnay dadkeenu maanta waxay u baahan yihiin horumar biyo caafimaad tacliim ma baahna qori umana socono qori annagu maanaan gaadhin xadkii uma dhowin dee haddii lagu soo regulaya waa isdaafacaysa marka waxaan leenahay qolooyinkaa war dee bal dib isugu noqon haddaa ilaa waa idin weerana ay ka go-an tahayna annagu waa isdaafacayna madaxweynaha soomaaliya ma wada hadasheen waana loo kala dab qaaday waxaanu labada iyaduba sidii layga soo wariyey ana aan ogolaaday haddana aan ogolahay in soomaaliya iyo somaliland wada hadlaan oo fagaare caalami aan ku wada hadalno oo sidana aanay inoo danahayn gardaradana annagaa tirsanayna waayo waxaa laleeyahy qaran matida aaladin xukuma qaran madax banaan oo beri hore aynu kala baxnay midnimadeeni baanu taagana ma bixi kartaan baa layna leeyahy dee inama qabato waa u gogol badinayna afrika kuwa dowladaha jaarka kuwa fogfogay adduunka xooga weyn leh waxaanu leeyahay gartayda ha la qaado oo bal fagaaraanu hel aan ku wada hadalno nimanka diyaar waanuna sida lay sheegay iyaguna isaguna waa ka diyaar anu nimaadno arrimihii dibadda safar baad u baxday
dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala doorbiday Djibouti iyo Ethiopia diblomaasiyadna markaad eegto luqadda diblomaasiyadda dalkaad ku horeysa macna gaaro luqadda diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbiday labada dalba wanaag iyo jaar mana dhaxsoo noo sameeyay mana kala dooran waa sida waraaqo kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kala ilmaan u raacnay labadaba jaar iyo walaaltinimo horeysa mana dhaxay wax laga baarbaaro inta la had iyo jeer kana lagu horbe anigu ma arko waxa inaan mid dooranay iyo inaan hormarinay waa sida kala hor yimaadeen waraaqo laba shay isku yimaadeen sidii ma ugu doorayna labadaba isqadarina labada jaar wanaagsan naga dhaxay waana si xoojinaa labada wax naga dhaxay marka siyaasadda armadibadda la yiraahdo Djibouti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha Soomaaliya raadka kula ama ka qayb gala Somaliland waxa ugu weynay u socota waa aqoonsi arinta misla soo qaadan madaxweynaha Djibouti Somaliland markay Djibouti afgarawda Soomaaliya ku hadasho oo Soomaaliya laga qabo cudurada Djibouti waxbay noo ogol hadda iska qaadan anu garan maayo cid aan Soomaaliya ku hadalsan afgaran hadday cid garteena qaadso kaan soo Soomaaliya qaadina garteena tusnooyay isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha Djibouti arrimaha Soomaaliya cid uma xogaarsana cid walba ugu xogaarsi hadduu noo bareeyo waxaan doonay u diiday inaan bareer bay noo oran kara wala waraaq la sii ka jooga hadduu garan kana waa oran kara inaga la raba dhibano waa inaga nimanka leeyahay ay xamar leedahay muqdisho ma madax banaan waad xukunaa iyo wax ku taban taagna inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno waxaan garteena sheegno Djibouti oo dhibir saaf Soomaaliya ka nirgeysa laga turjumi maayo kooran maayo waxaas maxay ahayd intaba uu ogi marka de meel uu inaga hor inuu dagaalamana karan mayno anoon kula ilaa waan isaga u gargaarana war waxay xasan haystay de wax ka qaboona garo markuu ku bareero ee gartara ku adiga gartara ku bareero ka cabo wax maxay gartaraas wali isagoo inama geeyana ma inta qarniga nabada maaga bersana madaxweynaha dawladdiisa jaraa'idka Djibouti wax doonaan bay ka qoraan sida de sax ma ta kale markaad leedahay war garbaan leeyahay hadda garabayso ila walo tayda ku raacnade hadduu kugu diido quraanu halka mar kale maayo de meel ku gacan saareen ma baynaan gaar halka noo garqaad waxay nagu diidin garteena de waxaan u baahanahay inaan soo fiirsano war waxa sanadaan nimanka dhex galo noo qabo marbu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dawladda Soomaaliland markana meel dhex istaag waa dhageystay marka ra'yiga oranaya Djibouti waa noo qoriyay ma ogola iyo mid baa noo ogol anu marko waxay ku xiran tahay saad dacwadaadu xirato iyo qof markaad marayso taas anaga laga rabo inuu cid eedanimo inuu cid caashaqna ma maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow Afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana loo sheeg waxaad ku raacay ma way safarkaagii xigay Ethiopia tagtay isku mid inta in lagu markala wurtay inta garteena leeg ay marwurtay waxyaalaha localka waa halkooda xuduudaha safarada waxbarashada ardayda baaxmisharka inta dawladdu waqtiga inta labadu way la sameeyaan waa laba dawladda qura ee maanta ay ka joogaan safarada ee aad baasaboorka hargeysa ka qaadan karto fiisada hadda dhamaanaysa weegan waa laba dawladda inoo xogaala waa labada ilaahay isku kala xiray jaarkaaga ma dooran kartid ilaahay baa kuu dooray marka labadaba wanaag iyo xurban u hayna wixii garaan u leeyahay labada sibraay lagu sheeganaa arinta qaad ku kala soo qaaday in dib ku tahay dhaqaalaha Somaliland waana dana dhaqaalo ka dhaxeeya Ethiopia iyo Somaliland ma ka wada hadashay ra'iisul wasaaraha mas'uuliyiinta sacad qaadku inuu Ethiopia naga yimaado dhaqaalaha galaana uu qaato taasina ay dhibaato nagu hayso sheegan laakiin mid baa taala Ethiopia nagu way qasbi qaad kale noqono inaga jecel haddaynu warinaga u waalan marka dadkay wuxuu jecel yahay ma oran karo cid kale ugu caban karadii laakiin waxaan u sheegnay dhibaatooyinka dhaqaalaha xumeynaya inuu kamid yahay nacasnimadeeda aan wixii aan haysan faakays ka dhigano qaar badan ka soo garo de waxa kamid ah maxaan ka iibsaday anigu qaadka aad jecel oo doonayo iibsanayay annaka waxaan ka iibsaday de taasna inaga inoo taala inaan wax iibgeena caalam ka iibino cid loo diyaar inaga iibsato de inaga loo shaqeynaa bay leedahay marka de nacasnimadeena cid kale u sheegi karo maxaa la tagteen idinku marka anigu waxaan la tagayaa waxa dadka soo saaro markaad wax soo saarto waxaan soo saaray iibsan leh haddii adiga aad gelinka inta badan qaydaysa in calaacalayso
soo in fadhi ka kacno dib isu weydiinaa ma inagu marka inaga laga rabaa Jabuuti iyo Ethiopia caalamka inuu xiib geeyo oo dhexda xidhanadii way arintooda hadallada Somaliland iyo Soomaaliya walow xiisadani ka soo martay haddana hawadii Soomaaliya ama Soomaalidu lahayd waxa la sheegay in Muqdisho lagu wareejiyay oo halka laga maamulayo arintaas iyada maxay idinka meeliyaan tiyaano gardara bareeran warka heshiis baan u saxan madaxweyne ka korreeyay iyo ECAW iyo Somaliland heshiiskii soo jiray Soomaaliya waxay sheegtay inay la wareegtay oo waxba tixgelin waa gardara bareeran waxa ka badan ka tirsanayna waxay la tahay waa to aan soconin doonin oo wala ku iimayn waxaan leeyahay arinta iyo kuwa ka ooyinba waa kuwan uga diyaar karnaa in wada hadal lagu dhameeyo haddii wada hadal la diido la isu joojin waayo oo la ismaqli waayana wanaag dhalan maayo taan ku cararayna waa taa marka anagu dulqaad iyo inuu wixii nabad ku doono ayaanu door bidinaa intii ay dhibaato iman lahayd arinta dhalinyarto kale inta badan wad ka hadashay waqtiga ololaha tusaalahaan oo kale surwaal adag madiina xidhaya shaqayn idin diiraya waa shaqaynaysaan in badan baad ku ceelisay haddii dhalinyaraan la jahayna iyaga dib ugu noqdo dalka ayaa inta badan dadku isku raacsan yihiin arinta maxaa weli kaaga mid waxaan uga bilaab jiray timahan waa ka xiirayaa surwaal waa diganaa ciidan maad ka dhigay bal amarka ilaahay timihii suuqa laga xiirayo cid abarta garan waayna waa soo baxday dhalinyaradu wala kabtanto waxay soo celiyeen kiribka xiraan timahan ka xiray xaaji masale noqotay qortaas qalad caab ahayd ka tiyaaru jeetaa ma waxaan u diyaar garoobaynaa oo dhaqaale u raadinaynaa dhalinyarada wixii aanu ballan qaadno in shaqo qaran la geliyo diyaar garoodo ku jira duruufada ku dhaqaale waa jira ballan qaaduna kama ahayn waa naga niyad dhalinyaradu inaanay diyaarada fadhiin oo aanay jahwareer ku dhicin oo haddii shaqo mushaara aad iyaga intaad u diyaarisan kharash ama dhaqaale hawsha ay ku qaban karaan in mushaara qaadanay oo dalkooda ku dhisi karaan waa tuqulin markuu gaar karo marka wadadeedan waana ma ahan ballan geedka ka ciyo kaambay ku gala waxaan oranaa waa mustaqbalkeena ku xiran ubadka in jooga kuwa dhali doonaan baa ku xiran in dalka loo dhiso dal walba wax ku dhismay daadii joogtay waa dhistay dhibaatada qaatay dhulkan quruxda badan aabayaashu baa ku dhintay oo lacag laan ku dhisay oo dhibaato badan maray deetana dhalinyarada dhaxalka wayday tanu doonaa inuu marraa waa taadee ciidan tabcan waxa ma dhaqato marka insha Allah ballanqaadkaas waa naga furi doonaa waana u tala urursanayna resource ama dhaqaale lagu horgelin lahaana waa diyaar gareyn madaxweynaha kula kaftamo su'aasha u dambaysa inta badan waxa la yiraahdaa waxa tala maroorsantaa marka ay gacmo badan gasho bulshada Soomaaliland maanta ku dhageysanaysa ee muuqaalkan dhaxal ku gali doono ballantaadu qaadaysa maxay tahay inaad qoyskaaga iyo maamulka kala ilaalinayso horta marka hore qoladiina saxafiintii حد والبوتي بسانو واحد كشر عيستا واحد اللي حدوني سامبا صحف أنا واحد دونا ذكرني قلت دقنك أضياء شيء أنا يربك في تمام ويا هذا أضياء لك في تسلم كلك في تمام مال بصبح كل فريق لكن كان قادر يكفتك واحد من بدل الشرع وهذا الرأي هو شرع كلامه قرن قوس كي كلام مو دوران عيد كلام مو دوران عيد قرن كو حلو بتوام من الحوينة يكون هيك أنا وتايرن في الديار بانو نيد أهان هي مورا الهرم الدهان بالديار بانكاي حتى قال ضمن الشعب كي أذيك كوات جاتا هوي كدا أتم قبل أنا حتى أنكم مقلوا أنا دارت كي أسال حقولها تراوريها تاسيام خدورنا ما كان يقول قوان بني أدبان هاي حتى قال ضمن أضل غير بينات